daawadayaal waxaan idinka diyaarinay socdaalkii uu ku mareeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland. barnaamijkani oo ah barnaamij xiiso badan isla markaasina aynu diiradda ku saarayno socdaalka uu madaxweyne Muuse Biixi ku marayo qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland. waxaana soo dhaweynta madaxweyne Muuse Biixi ka qayb ahaa maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynaba, wasiirka shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinda Jaamac Ersigani iyo dhammaanba bulshooyinka ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. waana markii ugu horeysay tan iyo doorashadii ka dhacday dalka madaxweyne Muuse Biixi uu ku yimaado isla markaasina ugu kuurgalayo xaaladda ka jirta deegaanadaasi. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi socdaalka gobolada bariga Soomaaliland uu ku marayo wuxuu ka soo bilaabay caasimada gobolka Saaxil ee magaalada Berbera, caasimada gobolka Togdheer ee Burco, caasimada gobolka Saraar ee Caynabo iyo caasimada gobolka Sool ee Laascaanood, isagoo u sii gudbi doona caasimada gobolka Sanaag ee Cerigabo. barnaamijkani waa barnaamij aynu diiradda ku saarayno madaxweyne Muuse Biixi Cabdi socdaalka uu ku marayo qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland. daawadayaal barnaamijkani waxaa idin soo diyaariyay anigoo Cali Aadan Dirir Cali Taaniya, dhanka kamarada iyo habeynta waa Cabdisamad Ismaaciil Cabdilaahi Cabdisamad Farta. dhammaantiiba waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.